leeyahay waxay isku dayayeen inay waddanka kala gooyaan. sidii haddaba cabdirasaaq xaaji xuseen uu jawaabtiisa ku sheegay oo ahayd inay habboonaan lahayd in sababta la weydiiyo raggii afgembigaasi isku dayay waxaa noo suura gashay inaannu weydiinno ambasador cabdulaahi aadan oo kongo ku magac dheer kana mid ahaa saraakiisha uu ka fashilmay inqilaabkaasi. cabdulaahi kongo waxaa markii dambe uu noqday danjiraha soomaaliya ka fadhiyey magaalada qaahira kadibna waxa uu ka mid noqday ururka jaamacadda carabta oo uu ka gaaray inuu ka mid noqdo la taliyaasha xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta isagoo ka jawaabayay arrinta inqilaabka ka fashilmayna waxa uu yidhi cabdulaahi kongo. inqilaabka horta waxaa ka horeeyey waxdadii koonfur iyo waqooyi israaxana waxay uga jeedeen markaa in ay u ahaato saldhig shantii soomaaliyeed inay laysku keeno halkaa markii waxdadaasu dhalatay sida xamaaska ay ku dhalatay markiiba waxaa bilaabmay in maslaxaddii shaksiga ahayd ama danguusasho in yari leedahay ay ka hor yeesho maslaxaddii caamka ahayd taasaa ka weynaatay waxaana jiray markaa miisaankii markaa taagnaa xagga waqooyigu waxaad moodaa inay ka baxeen oo wixii oo dhamma ay noqotay in miisaanka uu noqday xaggii koonfurta uun waxaa dhacday markaa markiiba dadka jooga waqooyiga cadaalad xumaa ay dareemeen diidmaad dhalatay israaca waxa la yidhahda ah waxaa la saluugameed leedahay markaa israaci maxaa markaa ku cadaynaysa inay saluugaasi jiray waa cadaynaysaa dastuurkii ama constitutionkii israaca xagga waqooyiga aqlabiyadii inteedii weynayd waa diiday waxaan xusuusay haddaana khaldanayn gebigiisaba waxaa ogolaaday 4,500 oo qof taa waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta iyo ardaydooda iyo dhakhtaradii waxaan xusuusay in iskuulladu waxay xidhnaayeen 4 bilood waxaa kala jiray shucaradii shalay u gabeeyey waxdada ee doonayeen inay dhacato israaco yaa markuna waxay isu rogeen kala go'i ragga waxaa ka mid ahaa ninkii timcadde markuu lahaa duqaydii baarlamaanka iyo dekadii xamar baa leh markii iscaweyne markuu saa noqday yaa waxaa jiray gebigeedaba waqooyi institution dhisan waxaa jiray militarigii ee soomaalika la dooran jiray waxaa la saaray militarigii marka waxaana la saaray lixaad yaa idin saaray marka shacabkii marka waxaa nagu dhiirigelin inaan umuurta halkeedii ku soo celino intaanay meel xun gaadhin oo arrinta soomaaliyeed aan soomaaliystirin ama meel xun la gaadhsiin waxaan u jeednay markaa horta waxaan waxay wax sawra tasiixiya la yidhaahdo soomaaliga waxa weeyaan inaad wax ku saxdo marka waxaan doonay waa inaanu ku soo celinaa arrinta siday ahayd 26 June annagoo quwad isticmaalayna si aynu u saxno qalatadii siyaasiga ah ee dhacay oo loogu bedelo cadaalad shacabka dhexdiisa ah waxa kale hadafkayga labaad wuxuu ahaa in dadku u wada siman yahay wixii xuquuqa iyo wixii waajibaadka ah waa tahay cabdilaahi kaa dhex galaa markaad leedahay waxaan doonaynaa inaan wixii saxno ma waxaad doonaysaan inaan wadahadal dambe gashaan oo waa tahay wadahadalkii anaan ku imanay inaan wadahadal doonayna ku caddaan doonta arrintuba waa tahay marka waxaan doonaya in dadku isku mid ah laga wada dhigo xagga qaanuunka iyo xuquuq waxay leeyihiin iyo wixii haystaa ay waajibaad leeyihiinba in loo sinaado waxaanu kala doonaynay inay waxa qora ee bani aadam mid Soomaaliya lagu qiyaasi karaa inay tahay kartidiisa iyo cilmigiisa oo aanay noqonin yaa reer hebela iyo yaa xidida iyo waxaa mid ah waxaanu doonaya inaanu la furo dialogue ama wadahadal walaalada iyada koonfur haddii taasu dhici weydayna diidaan kala gobaa dhexeeya inaan been kuu sheegin waxaanu oran lahayn haddii ay iyaguna diidaan markaa iyagaa dembigeeda anagu waxay kuwii kala go-a qaatay maanu ahay haddii aad taataabato matala waxyaabaha dhaliisheen dulmiga u aragteen markaas maxaa ka mid ahaa matala dhinaca milatariga oo kale marka la xagga milatariga waa kuu sheegaa dhegeyso waxaa dhacay mar ayaala markii la yidhi labadii waddan waa la isku daraya darajada waxaa lagu qaaday sambiil markaas ani walba wuxuu doonaya iskaga tasha laba kafadood baa la saaray reer hebel intaasay leeyihin reer hebel intaasay leeyihin milatariga reer hebel baa leh boliiska reer hebel baa leh ku-xigeenka reer hebel baa leh ku-xigeenka kale milatariga reer hebel baa leh waxay kaas xagee ka dhacaysa taas dee koonfur raggii boliiska ahaa yunbaa noologa dhigay jenaraalla iyo wixii annagoo markaa kasoo baxnay military academy oo soomaalina dee ah ta kale waxa weeyaan mar qura annagoo aan wax alle waxaanu iska filayay jiray sidii mustacmarada la qabsaday
يا هو حن قرنا يوحنا جوني ماشي بري عولا إلى هذا وحن هي رسالة ما هي مركها أفر ما يشتني سراكينو كونفور كتمي يوم بقى يقول لا روبر خصو يقول لا بركو جمهور مركنا عليه يدل يمادي زي يعني هو كوماندنتي معنا كان هو فيش كوماندنتي كان هو عين كان هو عين وحن أجانا متشري هو قرما نقطتين ما هو وحنا محل يسوي شيء هو مش ما يتخصص يعني واحد عين كاسو أن عدالة كل شيء هي ملتري ده يسكت حي واتاي كاسي وحوها عبد الله كونغو عبد الرزاق حاج حسين ورئيس الوزراء كأهان جري صوماليا هسيه شيء حلقي انقلاب كسراكيش واسكو ديانها وزير كأرمها جودها سيدي أن هربوا صو شيغني أيون إسجنا أرنتاسي وحكا ويديني عبد الرزاق ما كوجو مقتدى شخص حال مركن لا يبو حلقاسي إن أي كم مغان كرتوميش مثلا إن وقويجي سامي أي هيلين أنا هيلو قدر حق دفيه كشري ماشي سؤال وحوي سيدابي كتمد waxa kale sida ku dhacay weeye sida ku timid awal buule markii la isku soo darsamay hadiiba baarlamaanka la isugu yimid ajado loo dhayahay waxa lagu heshiiyay oo aan la isku khilaafin oo qof walba gacan saxabis lagu waxay هذا عبد الله عثمان inuu noqdo madaxweynihii jamhuuriyadda isu timid Soomaaliya oo hadalka qabay iyo qof la tartamay iyo qof aan ogolayn xaqiiqadu ay tahay ma jirin wadii looba sameeyay shacabis baa lagu aqbalay okay aadan cabdille markuu qabtay meeshii dastuurku wuxuu sheegaya waxa weeye aadan cabdille waa inuu dadka la showraa markuu dadka la showro waa inuu magacaabaa u yeeraa nin ay la tahay ninkii isaga ay la tahay inuu prime minister لا سامي قليل ولا سامي محورها قبل تكون مسح ماشي كنت توقع معي هذا عبد الواحد النقطي عبد الرشيد هو كان دقا برايم مينستر كيلو كان دقا برلمان كي وحا الله دورتي إن يسمونا غير وقوية يا الله دورتي تدخل جاكو وقوة وينيدو ليجسلاتيف اكزودوتيف iyo baarlamaanki judiciary wayagu goolay ahaayeen waxa yimid booliiska iyo militariga awal ba inta la isku soo darsamin muxuu ahaa la gooyay Southka oo Ingiriis Talyaanigu ayayo in military la sameeyo General Daoud ba laga dhigay inuu militariga u madax yahay ayaa markaa laga dhigay muxuu ahaa booliiskana Maxamed Abshir oo isla general ayaa markii booliiska la soo yimid جامع بورشيل أو يسمونه كورنيلا بحاجة كيميد أو بوليس كودا أيها كيميد بوليسي ماشي تشوفي واحد سوء أقبال أنا يتيك هنا نقف مرة كيلو زجرين محمد أبشر إنه كواليفايد وياه إذا ما تسوي تبربرش أو بوليس مدح النقريين وياه barnaamijkii taariikhda Soomaalida oo kii shanaad ahaana dhegeystayaal maanta halkaa aynoo joogo